waxaan ahay qof neersina waxaan ka shaqeeyaa MCH Waaberi wuxuu u shaqeeyaa dhalaanka iyo hooyada ani waxaan u shaqeeyaa qaybta caruurta haday talaal ahaan lahayd haday xanuun ahaan lahayd haday nafaqo ahaan lahayd waxaan ka shaqeynayay muddo dhan 8 sano ilaa 9 sano ilmaha markuu noo yimaado marka koowaad waxaan gelinaa buuga ku diiwaan gelinaa xogtiisa oo dhameystiran inta uu jiro talaalka nooca uu qaatay magaca hooyadii telefonkii tixraaca intaas oo dhan ayaan diiwaan gelinaa marka ugu horeyso ilmuhu noo yimaado xogtiisa ilmaha ugu horeysay markaan gelino caruurtuna waxay u baahan tahay in lagu sameeyo follow up soo noqosho badan waxaan isqaataan sida talaalka marka la qaadanayo 5 jeer ilmihii wuxuu baahan yahay ilmihii dabagal in lagu sameeyo 5 jeer la diiwaan geliyo ilaa la dabagalo ilaa 5 jeer inta ka dhameysanayo ilmaha waxaan u shaqeeyaa 700 bishii 700 oo ilmahaas oo ribida oo soo noqday ba waxaan rabaa hadana inaan talaalkii ku sameeyo follow up oo update lagu sameeyo ilmo walba meeshii aan ku qoray waxa marka wareer badan ka imaanaya raadinta ilmahaasi in dib loo raadiyo la soo helo ilmihii xogtii xilligii la xareeyay xilligii talaalka qaatay imise talaal buu qaatay in buugi dib looga raadiyo way adag tahay marka 700 inaad dib u raadisid oo qortid oo hadana soo heshid oo waxa weeye waad garanaysaa manualka qalinka waxa lagu qorayo inta dib ka imaan karta inaan fartii wax ka fahmi weydin inay fartii tirtirantay inuu qalinka mid yahay isku dardaray fartii marka way aad bay u adag tahay in dib loo raadiyo 700 ilmaha. The Response Innovation Lab is a global collaborative partnership. Our founding and core members include World Vision, Save the Children, Oxfam, and Civic. As part of our matchmaker function, we identify challenges in the humanitarian sector and pair them with existing solutions. One such challenge was approached to us by World Vision, who came to us with the challenge of providing healthcare to nomadic and displaced mothers. How do you track their immunization cycles if they are moving from clinic to clinic? They submitted a formal challenge to us, and we began the research process. We identified a few solutions, but one solution in particular was from Ogo EMR, a Somali health tech company that had developed an electronic medical record system. They had won some big backers, including the Gates Foundation and the Open IDO Challenge, and so we knew it was a reputable solution. And what was really appealing was that they were local. And from our experience, what we have seen is that a locally derived solution has a better chance of having positive impact and being sustainable. And so we brokered a partnership between World Vision and Ogo EMR to do a pilot at a few World Vision supported clinics in Puntland. At Ogo EMR, our mission is to enhance the health of people in Somalia and to contribute to a healthier and more equitable world. The problem we are solving? Connecting a highly disconnected medical system, helping reinstill mother and caregivers' trust in the medical system by providing transparent, credible information and giving mothers more agency over their child's health. Ogo EMR is providing contextualized mobile health solutions to those on the front lines in an effort to support mothers, caregivers, and their children to have positive experiences at the health facilities, as well as providing individualized reminders on where and when to go for services. Application-ka waana loo keenay World Vision waxay nagu casuumtay howlkeeda World Vision ku yaala waxaana loo keenay barnaamijkan wiilkii nagu tababaray Khalid meeshii ayaan tagnay sidii ayaa barnaamijka noogu bilaabay tababarkii bartaas uu nooga bilaabay application-ka waxaan hadda ku shaqeynaynaa muddo 4 bilood April baan ka soo bilownay ilaa bishii July waxaan gelinay dad ku dhow 1500 oo dada application-ka shaqadiisa markaan ku shaqeysanayno iyo markaan buug ku shaqeysanayno waxaan fududnahay markaan application ku shaqeysanayno ama waxa gelinaysa serial number-ka uu leeyahay magaca research ma sameynaysa markii uu soo baxaya waa gelinaysa ilmihii waa si yar fudud buu kugu qabsanaya ma la helayo hooyo xilligeedii dhaafaysa wuxuu u dirayaa message oo si qurux badan ugu dirayaa oo wali waxyaalaha aadka noo soo jiitay ay ka mid tahay 3 bari ka hor inuu hooyada xusuusanayo sidii soo diyaar garowdo in ay talaalka maalinta hiblaayo MCH ka geen doonto ilmaheeda si talaalka u helo systemkan already hadda waan isticmaalnaa saan ku sheegay 2 xarumood baa beelad noogu ah si fiican buu noogu shaqeeyay sababta noogu shaqeeyay waxa weeye hooyadii markii xarunta timaado deetideedii isla markiiba waxa la gelinayaa taabka la gelinayaa
iyo xataa in wixii systemkii xataa xogta caafimaadka adoo xafiiskaaga jooga ama degmada gobolka jooga dashboardka aad furan kartid aad ka arki kartid exactly inay arrintaas inta maanta talaalay inta aan la talaalin si maalinle ah aad xagga awal intaad bil sugi lahayn xogta laakiin markaan si maalinle ah bay marka waxyaalo badan oo waxaa jira uu usoo kordhiyay useful ahaa hadda waxaan ka fikiraynaa keliya bal xarumihii kale because waddanku laba xarun waa ka badan yahay waxaan rabaa inaan dhahno xarumihii kale ee Puntland oo dhan sida loo gaarsiin lahaa inaan hadda isla eegno. We've been really encouraged to see this pilot progress and to see some of the things coming out of it. We are hearing great reviews from healthcare workers on how this system is helping them to do their jobs easier. And we're also hearing things from beneficiaries and patients who are saying they are coming for repeat visits because of SMS reminders that they are receiving. Thanks to our partners and supporters, including the Bill and Melinda Gates Foundation, Open IDEO, Portland's Ministry of Health, World Vision, the Response Innovation Lab, and our partner hospitals and staff, GoEMR's impact has been wide-reached. We take pride in the work we've done and our hard-earned accomplishments, but we recognize that there's still much more work that needs to be done to achieve the 2030 Sustainable Development Goals. We hope you'll be able to join us as we look to scale our solution to support more frontline workers and patients across the country.